anigu ma doonayo dadka ay u qasbayaan runtii haddaan sheego oo dadweynaha ayaantii aan oran weli hadlinba dadweynuhu weliba dhalintu ay tiri joog dhaqaaqina ay u tiri baan iyaan u soo dhigtay inaan mar ugu dambeyn haddii alla yidhaahdo aan samayno inaan sii joogo oo shaqada wixii yani qabiyo naga aan sii dhamayn mansab jacayl iyo madaxweynenimo wax danahoo gaar ahoo aan ka doonayay ma jiro waan gaboobay shaqaduna dhalinta ay ku wanaagsan tahay wixii barnaamij noo socdana dee iminka hawshu way badan tahay barnaamijyo aad u fara badan baa noo qabsoomay haddana kuwa aan ku dhex jirnayna kaba sii weyn shaqala-aantu waxa weeyaan wax jira laakiin sida loo dhigayo ma aha shaqadu dawladdu uuni shaqa ma qaban dawladdu waxay samaysaa soo dhaweyn iyo bogaadin iyo magaranaysa ay tirtirsiiso maalgelishayaasha ama gudaha ama dibadda wixii anagu aan qabanayna 60 iyo 70 iyo baan ka niminay oo 20 ma joogna iminka haddii alla yidhaahdo dalka Djibouti doorasho ayaa ku soo foolay bil kadib waxaana sanadkii 2014 jiray heshiis idinka iyo mucaaradkaada wada gaadheen oo dhigayay in dhinacyada siyaasadda isla soo dhisaan guddi doorasho ka madax bannaan wasaaradda arrimaha gudaha mucaaradku waxay ku andacoonayaan in heshiiskaasi uu dhanka dawladda ka socon waayay maxay tahay sababtu waan ku daalnay raggaas anagu sida loo sameeyo 49 markaad ka soo bilowdo ilaa maanta doorasho uma ku jirna waxa aan yani wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka shaqeysa waxaasi guddi madax banaani uu jira uuna jiri jiray heshiis dadkaasi aad sheegayso aan la sameynayna ku anagu aan ka baxna maahina ayaga unba ka baxa mar walba kolka ay arkayaan inaanay u suuroobaynin inay wax helaan ay durmaan qaataan oo ay meel walba ka qayliyaan kolka meedaanka kale la yiraahdana etimada lama arko oo tayale dhaqaarta ay doorasho imanayso beedaan waxaan nahay xisbiyo waxaan nahay mucaarad oo sidaad waxba lagu mahro sida ay sheegeen hay'adaha xuquuqda aadanaha dawladdu waxa la sheegaa inaysan wax dulqaad u haynin dadka dhaliila siyaasadda oo haatan dadka idin xiran waxa kamid ah Fuad Yusuf siyaasiyiintii mucaaradka ugu tunka weynaan wadanka way ka carareen marka doorashada xalaasha ah ayaa doonaysa in dalka Djibouti ka dhacdo maxay tahay dhageyso waxaad aragtay dad bila cabasho amiyada qoys qurahatay haddaad dhex joogsato waad helaysaa qof cabanaya wadanka looma jooji kow talabaadna qof dambi galay lahaynaan la xirin meesha ay ka timid ma garanayaan daraarta uu nin dambiila noqdo ayuu siyaasi noqda weligii isagoo siyaasadna arkin askari ah shaqaysta daraarta uu isagu dambi uu doontay uu sameeyo uu dalka khiyaameeyo uu xoolaha dawladda jajabiyo oo uu dad laayo ayaa lagu oranayaa wuxuu yahay siyaasi ee soo daaya ma noqonaysa sida cadaalad baa jirta halka baa la geen garsoorku waxa uu ciqaabo isaga anagu mariyo ugu dambeyntii markii madaxweyne sanadkii 2011 waxaad sheegtay inaadan mar kale u tartami doonin xilka madaxweynenimo ee dalka Djibouti inkastoo wixii ka dambeeyay aad u tartantay haddana aad u hanqaltaagayso dalka Djiboutina waxa toddobaadada la soo dhaafay ka dhacay dibadbaxyo dadku ay ku dalbanayaan inaadan mar kale soo sharaxin goorma dadka kale fursad siinaysaa هاي مدينة دورشة ما كل ذي ما دكت أنا دورشة كل ذي أنا وما دكت نك ما هي هنا هذاك هو أفرني شان هالنقدان طبعا هالنقدان عيد دي ذكرتها ما مجلس مش